magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn u horumaraya sanadba sanadka ka dambeeyay sanadkii dhamaaday 2013 ayaa waxay magaalada Baran ku talaabsatay horumar aad u weyn oo taabanaya dhinacyo badan sida xagga maamulka, nadaafadda, ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka. Warbixintan kooban ayaa waxa ku eegaynaa horumarka dhinaca dhismayaasha iyo bilicda degmada taasoo ay iska kaashadeen golaha deegaanka degmada Baran, hay'adda DRC iyo bulshada shanta xaafadood ee degmada Baran. Hay'adda DRC oo kaashanaysa golaha deegaanka degmada Baran ayaa waxay degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada ka fursay 15 mashruuc oo dhismayaal ah taasoo ay ka qayb qaadanayaan dhinacooda bulshada dhaqaalena bixinayeen. Horumarkan ay gaartay dhinaca dhismayaasha degmada ayaa waxa ka mid ahaa garoonka diyaaradaha kaasoo ay dhisay hay'adda ICRC waxaana kontaraaga qaatay shirkadda dhismaha Calmado oo dhameystirtay waxaana soo caga dhigtay diyaaradii ugu horeysay oo tijaabo ah ay leedahay hay'adda ICRC. sidoo kale waxaa degmada Baran ka hirgelay garoon kubadda cagta kaasoo dhisan oo la dhameystiray walow ay weli wax badan u dhiman yihiin. waxaa iyaguna xaafadaha kala duwan ee degmada Baran laga dhisay dhismayaal iskugu jira dugsiyo, goobo caafimaad, hoolalka shirarka. waxaa sidoo kale hay'adda Adeeso degmada ka dhistay hoolka shirarka haweenka halka wasaaradda waxbarashadu dhistay xaruntii waxbarashada gobolka ee degmada Baran ayaa waxaa sanadkii aynu soo dhaafnay gaartay horumar aad u weyn taasoo ay sababta ugu weyn lahaayeen golaha deegaanka degmada Baran oo iyagu horumarka degmada gaartay qayb weyn ka qaatay waxayna goluhu muujiyeen isku duubnay iyo sawir aad u weyn. Saciid Cabdilaahi Tiig, Idaacadda Bulshada Soomaaliyeed, magaalada Baran ee gobolka Sanaag.